السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي قالقا كسو دوادا markale iyo cilmi tag YouTube channel kada ku cusubtaa subscribe leh hadii aan la joogtaan la sii joogo video kan like dhe share dhe comment-iguna waa aragtidiina sidoo kale waxaa soo booqan kartiin website-kayga oo ah cilmi.tech sidoo kale Instagram-kana waa soo noqod wanaagsan saaxiibada qaaliga aad iyo ayaan idinkaga mahadcelinayaa taageeradiina iyo daawashadiina iyo like-tiina iyo comment-giina intaba videogan maanta waxa uu ku saabsan yahay Gmail recovery waa maxay hadaba Gmail recovery waxa weeyaan markii aad Gmail samaysatid waxaad u baahan tahay inaad gashatid numberkaaga iyo Gmail kale ama Gmail kaas kale adigu lahaw ama qof kale saaxiibka lahaadee waxa muhiim ah in uu Gmail kale kugu jiro oo recovery waxa la dhahaa lacala markii oo Gmail kaaga passwordkiisa ka lumo waxaad dhahaysaa forget Gmail password marka Gmail password raadid waxa lagu tusayaa number ayaa lagu tusayaa waxa lagu leeyahay numberkan hadii aad leedahay numberkan ayaa kood ugu soo diraya hadii aad lahayna Gmail kaaga waa weynaysaa sababtoo ah waxa ay ka taxadirayaan in qof kale oo Gmail kaagi qaato waxa laga baahan yahay in aad Gmail kaaga u samaysatid recovery oo aad recovery u samaysatid recovery oo ah number ama Gmail kale sida daraadeed hadii oo Gmail kaaga ka lumo passwordkiisa hadii oo ka lumo waxaad dhihi kartaa forget email ka bacdina numberkii aad gashatay ama emailkii aad gashatay ayaa waxa lagu soo dirayaa code marka gashatidna sidaas ayaad uga sii gudbaysaa meeshaas oo password kale ayaad samaysanaysaa sidaas ayaadna Gmail ka ku isticmaalaysaa sidoo kale waxaa jirtay qiso oo ku dhacday koo saaxiibkay ah marka Gmail-kiisii oo isticmaalayay ayuu waxa uu galiyay recovery ahaan ayuu waxa uu galiyay Gmail oo san garanaynin kiisa ma ahay isla kiis inuu galiyo malana mase Gmail kale ayuu galiyo waxa uu ka qalday ka bacdi waxa la dhahay haye password numberkan gali waxa uu galiyay numberkiisii ayuu galiyay muddo ka bacdi waxa uu iloobay Gmail-kiisa passwordkiisa ayuu iloobay marka uu iloobana waxa damcay inuu dhaho forget password inuu dhaho ka bacdina uu saas ku soo ceshto waxa la weydiiyay numberkan ma leedahay code ayaa lagu soo diray code-ka ayuu galiyay hadana waxa la dhahay Gmail-kan code ayaa lagu soo diray gali Gmail-kii ma baa garanayo Gmail oo yahay lama yaqaan sida darteed Gmail-kiisii sidaas ayuu ku waayay oo Gmail-kiisii sidaas ayuu uga samray sababtoo ah way ka taxatirayaan oo waxay u maleeyaan qof kale oo tuug ah oo xadaaya si aysan kugu dhicin in markii aad Gmail kaaga passwordkiisa ilowdo in aad ka samartid si aysan kugu dhicin waxa aad samaysataa Gmail kaaga waxa u samaysataa recovery fiican u samayso adiga oo gelinaysid numberkaaga gelinaysid iyo Gmail kale Gmail kaas kale waxa noqon karaa Gmail aad leedahay ama waxa gashanaysaa qof saaxiibka kugu dhow ama walaalka oo kale Gmail-kiisana ayaad gashanaysaa ka bacdina hadii aad kaaga passwordkiisa iska ilowdid halkaas ayaa lagu soo dirayaa oo xaggaas ayaad ka helaysaa ama numberkaaga ayaa lagu soo dirayaa hadii aad wali numberkiisa isticmaalaysid mar walba numberka iska bedeshidna numberka ku xiran iska bedel sidoo kale waa aad fiirin kartaa oo aad check garan kartaa recovery-ga oo kugu xiran Gmail-kaaga si aysan dhibaato kugu dhicin si aad u ogaatid Gmail-kaada recovery-giisa ama numberka iyo Gmail-ka recovery ahaanta kugu xiran waxaad soo qaadanaysaa mobile-kaada ka bacdina waxaad si tagaysaa Gmail ayaad tagaysaa application-ka oo Gmail-ka midkan ayaad ku dhufanaysaa marka ku dhufatid marka midkan tabatidna waxa aad tagi doontaa meeshan oo sawirkaaga ama magaca oo profile-ka ah ayaad ku dhufanaysaa marka ku dhufatidna waxa uu ku geynayaa meeshan kale oo isla meeshii aageeda laakiin waxa aad dhigi doontaa manage your Google account ka bacdina marka meeshan geeyo geestan ayaad u soconaysaa waxa tagaysaa meesha ay ku qoran tahay security markii aad tagtid hoos ayaad u soconaysaa oo meeshan weeyaan meeshan u socono meesha markii aad joogtid maxaa ku qoran qoraalka kore akhri oo weynka waxa lagu dhahay wadadan waa wadada kaliya ama wadada kaliya ee aan kugu aqoonsan karno Gmail-kan in adiga leedahay hadii aad leedahay numberradan Gmail-kan aad leedahay account-kan adiga ayaa iska leh hadii aad garanaysid sababtoo ah markii oo ka lumo Gmail-kaada passwordkiisa markii oo ka lumo code-ka waxa lagu soo dirayaa numberkaas ama Gmail-kaas
labadaas mid kamid ah haddii aadan garanaynin waa iska baxaysaa saaxiib oo gmailkaas waa ka samraysaa sabab midda kale numberkan sidiisa ma lagu tusaayo dhibic ayaa lagu tusayaa oo saddexda dambe u dambeyso laba lambar u dambeyso 34 ayaa lagu leeyahay inta dambe buuxiyaa lagu leeyahay sidoo kale gmailka hebel lagu qoraa dhibic leeyahay gmail lagu leeyahay buuxiyaa lagu leeyahay haddii aad buuxisid gmailkaas adiga ayaa iska leh waa lagu aqoonsanay inaad leedahay sababtoo meeshan kore ayaba ku qoran waxay dhaheen meeshani waa meesha kaliya aan kugu ogaan karno in aad adiga tahay ninka iska leh gmailkan ama qofka iska leh marka mar walba waxa iska hubisaa in aad numberkaas haysatid oo aad meel ku og tahay iyo gmailkana sidoo kale aad meel ku og tahay labada haddii ay meeshan ku jiraan markii gmailka passwordka kaalma waxa ayaa laga weydiinaa waxa lagu leeyahay gmailkan ma taqaanaa ma yaa dadid kusha shakaas waa isku dhamaatay marka haddii numberkan oo yahay number aad iska bedeshay oo aad ka soo gudubtay hadda ayaa iska bedeli kartaa waxa gashan kartaa numberka ayaa gashan kartaa adigoo falaartaas si raacayo kabacdina sidan ayuu kugu wareejinayaa gmailkaadan passwordkiisa gali ayuu ku leeyahay marka galisidna numberkii cusbaa gali ayuu ku leeyahay oo doonaysay inaad u isticmaashid waan isla fahnay ayaan filayaa meeshaas sidoo kale gmailkuna waa la mid oo asna inta taabatid ayuu wareejinayaa wuxuu ku leeyahay midkan aad isticmaalaysid marka hore passwordkiisa gali marka galisidna waxa lagu leeyahay midkii aad ku bedelaysay kii hore uga bedelaysay gali halkaas ayaad uga gudbaysaa mushkilad walba oo kugu soo socotay aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibada qaaliga intaan ku kulmi doono video uga xiga waxaan kaga tagayaa isma dhaafno